wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad deegaanka Soomaalida Cumar Sayid oo muddooyinkii ugu dambeysay booqasho ku joogay wadankani Somaliland ayaa maanta soo gaaray xarunta dhexe ee xiriirka kubadda cagta Jamhuuriyadda Somaliland. wasiirka waxaa socdaalkiisa ku wehelinayay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Maxamed Cabdilaahi Siciid Khaawi, waxaana halkaasi ka soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan xiriirka kubadda cagta Jamhuuriyadda Somaliland. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay kana warbixiyay habsami socodka iyo xiriirka shaqadooda agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Khaawi. bismillaahir rahmaanir rahiim. maanta waxaan ku suganahay xafiiska xiriirka ciyaaraha kubadda cagta ee Jamhuuriyadda Somaliland oo runtii aynu ku soo dhaweeyno wasiirka dhalinyarada ciyaaraha ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo runtii safar booqasho ku yimid dalka. waxa uu wasiirku indheyn doonaa runtii uu kurgeli doonaa sida habsamida socodka shaqada ay uga socoto xiriirka kubadda cagta ee Jamhuuriyadda Somaliland oo runtii si activity maalinle ah u qabta shaqooyin kala duwan. waxaa halkan ku sugan gudoomiye ku-xigeenkii dhammaan guddiyadii kala duwan, guddida dacwadaha, guddida raafaanka iyo dhammaan xubnihii kala shaqeynayay runtii shaqooyinkoodii sida ay u qabtaan iyo waxyaabaha kala duwan ee maalin walba ay qabtay dhacdooyinka ay xaliyaan waxaa inoo faahfaahin doona inooga warrami doono gudoomiyaha. waxaan ku leeyahay wasiir kusoo dhawow mar labaad iyo mar saddexaadba waxaa timi dhulkaagii, waxaa timi xiriiradaada u timi, waxaa timi wasaaradaadii, waxaan ku leeyahay kusoo dhawow. geestiisana waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Somaliland Fuad Axmed Cali, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin. runtii sharaf weyn ayay noo tahay agaasimaha iyagii guud ee ciyaaraha isagoo wehelinaya wasiirkii wasaaradda xafiiska wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad deegaanka in uu halkan nagu soo booqdo. runtii waxaan ku faraxsanahay booqashadan. annaga dee macno gaaray noo sameynaysaa in agaasimaha iyagii guud isagoo wasiirkii Itoobiya dowlad deegaanka ciyaaraha qaabilsanaa wada. runtiina wasiirku naguma maaha markii ugu horeysay aanu kulannay. runtii waxay ka turjumaysaa uun xiriirka aan wada leenahay runtii qotada dheer ee hadda muddada dhowrka sano ahaa runtii soo socday iyo sidaan iskugu xidhannahay un bay caddaynaysaa. wasiir waanu kaaga mahadnaqaynaa. kolley sharaf gaaray noo tahay in si shaksiyana aanu kuugu mahadnaqno annagoo marar horena kuu mahadnaqnay. waxaanu kaaga mahadnaqaynaa wasiir tababarayaashii dalka dibaddiisa aada noogu soo tababartay inaad maanta waliba ka daba timaadid oo aragtid goobaha ay ku shaqayn doonaan iyo shaqada halkan laga wado. runtii farxad gaaray noo tahay. waxaa xusid mudan federationku runtii waxa uu isna la shaqeeyaa federationka dowlad deegaanka oo gudoomiye xiriirka halkan uu noogu yimi Xaaji oo runtii isna gudoomiye ku-xigeenka iyo tiimkii runtii hawlaha badan la qabtay halkan joogaan. xiriirkeenani runtii waqti dheer buu bilowmay. waxaan xasuustaa markii ugu horeysay xafiiskaaga aanu nimi anigii agaasimo guud waxaanu wadnay koox ka timi gobolka Sool oo ku soo ciyaaray dowlad deegaanka. waqtigaas oo xiriirkaasi bilow ahaa waxaa ka dambeeyey shaqadii ballaadhnayd ee wada qabanay haddii ay noqoto waqtigii doorashada halkan lagu qabanayay, waqtigii ciyaaraha gobolada halkan lagu qabanayay, waqtigii ciyaaraha gobolada lagu qabanayay dowlad deegaanka. runtii tababaradii ka dambeeyey haddoo aad halkan maraysid runtii waa mid joogto ah. waxaan filayaa in wax badan oo kale oo laabana aad noo soo wadid wasiir oo runtii aad horena kolley qaarkood noo sheegtay wax badanna aad noo sheegi doontid. haddaan kaaga warbixiyo xafiisku xiriirku muddooyinkan wuxuu hadda ku hawlan yahay waa development inuu sameeyo. sanadadan waxaanu bilownay horyaallo runtii dalkao dhan ka hirgalay. laba gobol, gobolka Togdheer iyo gobolka Saaxil way soo gabagaboobeen horyaaladoodii. dalku waa kala cimilo duwan yahay oo waqtiyo kala duwan bay horyaaladu bilaabmaan, qaarkood isku wada waqti maaha. laba gobolna hadda ayaa la bilaabayaa, aan iraahdo saddex gobolna hadda la bilaabayaa. gobolka Maroodijo isagoo dee ka level kiisu heer national yahayna way socdaan oo waa iska gabagabo. waxaa ka dhiman 7 kulan baa filaya. sida kale runtii waxaa ka socda development aad u ballaaran oo waxaanu ka shaqaynaynay qaybta sharciyada oo in dhaweyd aanu wadnay. walaalaheen dalka Djibouti baa iyakuna nala jooga xafiiska oo muddo hadda bil wafdi noo soo diray develop gareynayay sharcigooda iyo xeerarkooda. sanadkii 2021kii waxaan sameynay version sharciyadii dalka lagu maamulayay oo dhan ah oo buuga aan ugu talagalnay buuggan inaanu adiga ku siino oo runtii aad qaadatid.
marka haddana waxaan ku jirnaa inaan diyaarno versionkii 2022 sanad walba kubadda cagta waxbaa lagu biiriyaa waxna way runtii waa laga bedelaa sidoo kale waxaan hadda diyaarinaynaa tababarayaashii national teamka xulkii dalka Somaliland ballanqaadyo fara badan runtii waanu helnay saaka u dambeysay waxaan nala soo xidhay wadanka Tanzania oo raba inaanu ka soo qayb galno toddobaadka kubadda cagta dalka Tanzania oo iyagu qaabilaad rasmi ah noo soo diray marka runtii waxaad moodaa kobac aad u weyn dhanka ciyaaraha inuu ka socdo waxaanu wadnaa system runtii isna horena aynu uga wada hadalnay oo la yiraahdo system wax ka bedeli doona ciyaaraha dalka sida loo maamuli doono dhan systemkaasi wuxuu noqon doonaa fingerprint system inanka burco ka ciyaara iyo ka boorama ka ciyaara ka hargeysa ka ciyaara ka gobolada kale ka ciyaara halka laga wada arki doono muddooyinkii dambe waxaan ugu yara cusboonaaday muramo ka yimaada dhanka gudiyada soo gaadha oo kaararka ay qaataan oo kale kaarkaasi uu qaatay iyo muu qaadan waxaa lagaga baxayaa waa system kan hadda aanu develop garaynay oo isagu line up kaba diidi doona automatically qofka huruud qaba iyo qofka jaale wata systemkaasi wuxuu ku xidhnaan doonaa horyaalada FIFA ee geeska Afrika khaasatan dowlad deegaanka iyo Ethiopia iyo wadamada jaarka Djibouti iyo intaas oo dhan ku xidhnaan doonaa wuxuu noqon doonaa inanka ka taga Somaliland ee taga wadan kale in farihiisa laga soo helo marka waxa iman doona kala iibsasho labada naadiye laba wadan ka kala ciyaara inay kala iibsan doonaan si toos ah haddii aad in badan maqli jirtay qof baa wuxuu iska dhiibay Turkiga ama Talyaaniga farihiisiba waxa laga soo helay markuu aaday Scandinavian-ka dib baa loo celiyay farihii waxa laga helay Greek ama Italy waa la celiyay kubadda cagta Soomaaliland waxay noqon doontaa sidii kale oo mid iyada ku xiran East Africa waa aqoonsi dadban oo runtii u soo kordhay ciyaaraha yaga iyo ciyaaraha geeskaba systemkan runtii waan kula wadaagi doonaa injineeraha hadda ku hawlan oo xilligan hadda ka shaqeyn doona caawa ayay sameyn doonaan bandhig kooban haddii sidii aan ugu talagalnay uu noqdo isbuuca dambe waxaan doonaynaa ilaa wasaaradda ilaa dadka daneeyayaasha ciyaaraha oo dhan inaan usoo bandhigno runtii waxaa ku kacay lacag aad u fara badan baa ku kacay laakiin waxaanu aad ugu faraxsannahay in muwaadiniin dalka u dhashay ay ku tabaaruceen iyagu oo maskaxdooda iyo runtii fikirkoodaba ay geliyeen marka runtii warbixintaasi wataa dee aad baan kugu soo dhaweynaya inkastoo aad magaaladaadii tahay oo aan lagugu soo dhaweyneyn haddana farxad bay noo tahay runtii waxaan ku leeyahay welcome ugu dambeynna waxaa soo gunaanaday wasiirka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo uga mahadnaqay dhammaanba xidhiidhka iyo wasaaradda Somaliland sidii ay ugu soo dhaweeyeen dalka waxaana hadaladiisii ka mid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku faraxsanahay inaan soo booqdo xafiiska xidhiidhka kubadda cagta ee Somaliland oo waxa weeyaan soo booqashadaydan ay ugu wehelnayay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland kulay xafiiska xidhiidhka kubadda cagta uu leeyahay waa mid aad iyo aad u wanaagsan oo wax badan aan intii yareeyeen soo booqdeen ka bartay xidhiidhka kubadda cagta ee deegaanku leeyahay kulay wax badan xaggan aan ka barano way jiraan wax badan oo annagana laga bartano way jiraan annaga nidaamka dawladnimo maadaama yar xoog badan yahay dhinacyadaas aanu kaga fiicannahay inta badan iyo waxyaabaha maaragtay aqoonsiga si fudud in loo helo haddii tahay imika tababarada kala duwan si fudud in loo helo FIFA iyo kuwa CAF idinkuna waxaad naga fiican tihiin qaabka wax loo habaynayo kulley horyaaladii ama liigagii kala duwanaana already idinku aad leedihiin hadday gobolada noqoto iyo hadday kuwii nationalka noqoto xogtooda qaabka loo habaynayo waa mid aad u fiican oo soo arkay hadday noqoto kooxaha ciyaaraya koox kasta yaa qaatay huruud yaa casaan qaatay xog ciyaar kasto maanta dhacdo xogteeda qaabka aad u waxaynaysaan waa mid aad u fiican waxaan nii hadhow kaliya aan arkayaa digitalized in laga dhigo laakiin manual systemka aad u develop garaysan waa mid aad u fiican heshiisyada ama kala iibsiga ciyaartooyga qaabka loo diiwaan gelinayana waa mid aan aad ugu bogo waxyaabaha dhibka naga haysta inta badan ciyaaraha gobolada ayaa anaga ugu culus ciyaarahan qabano markay dhacaan xogta qaabka loo qorayo qaab waraaqa hawada socota hadii lagu qoro hebel baahiye laakiin inta system maaragtay database inta la sameeyay laakiin book inta loo sameeyay qaabka loo qoro waa mid aad iyo aad aan ugu bogay xiriirka kubadda cagta isbedelka uu keenay hadda ay muuqdana waa mid ay waxa weeyaan ku garab taagan tahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland oo
agaasimaha guud iyo wasiirkaba uga mahadnaqayo inay maaragtay xiriirku heerka u gaaro shalay markii la dooranayay annaga garab urdano taakulin maanta annaga oo cashir ka baranna waa mid aad iyo aad u wanaagsan meesha xirfadle iyo rag kartila markay isku yimaadaan wax badan baa la qaban karaa waa Suhayb Maxamed Cabdilaahi True Sports Hargeysa.